Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Muuqaalkan waxaan ku baran doonaa sida loo jaro background-ka sawirka weliba adigoo isticmaalaya Affinity. Marka hore Affinity ayaa waxaa soo gashanaysaa sawirka aad rabtid inaad background-ka aad ka jartid. Marka waxaa leeyahay selection tool. Marka toolkan oo background lagu jaro waa la soo degsadaa. Hadda marka wuxuu kuu soo saari doonaa window kaas oo aad ka soo degsan doontid. Ani horaaga u soo dejiyey. Markaad soo dejiso kadib waxaad ku dhufan doontaa qaybtaas. Kadib waxaa leedahay select brush tool. Kadib waxaad dooran doontaa qaabkii Photoshop oo kale sawirka ayaad dooran doontaa. Sawirka markaad dooratid kadib tusaale ahaan markii uu banaanka wax yar uu kaaga baxo waxaa leedahay alt kadib waad soo celinaysaa. Sidoo kale waxaa isticmaali kartaa qaybtaas add ama subtract. Markaad dooratid kadib ama doorashada aad dhamayso waxaad samayn doontaa refine wax la dhaho. Refine waxaa ku isticmaali jiray Photoshop. Waa the same qaabkii aad Photoshop aa u isticmaali jirtay. Waxaad leedahay refine. Refine markaad dhahdid kadib waxaad dooran doontaa dhinacyada si yani timahaas oo kale background-ka xoogaa laga dhex arki karo. Waxaad samayn doontaa brush-kaas ayaad isticmaali doontaa. Xoogaa waxbaan ku darsanaya aniga size-kiisa. Kadib waxaad leedahay waxaad marin doontaa meelahaas oo timaha dhinacyadiisa ama agagaarkiisa ayaad si taxaddar leh u marin doontaa. Sidoo kale qaybtaas waxaa ka bedeli kartaa background-ka qaabka u muuqdo markaad editkan aad wado. Black and white ama waxaad overlay. Sidoo kale smooth-ka waxbaad ku dari kartaa si yani sawirka dhinacyadiisa uu noqdo sharp. Kadib waxaad leedahay apply. Kadib background-ka ayaad dooran doontaa qaybta layers-ka. Background-ka markaad dooratid kadib waxaad leedahay control J. Kadib background-ka ayaad iska qarin kartaa ama hide ayaad dhihi kartaa. Sidaas ayaa waxaa ku jartay background-ki. Waa easy waa sidii Photoshop oo kale marka laga reebo download-kaas. Waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Waxaan kaga tegayaa sidaas iyo amaano Allah.